kulantii haboon idil ahaantiin baa daawadayaal meel wariba waad ka joogtaan daafaha caalamka halkan waraatan TV qodobada wararkeena ugu doorona waxaa qayb ka noqonaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho oo ay siyaasiyiin buux dhaafiyeen ana idin soo baahin doona yihiin siyaasiyiinta halkaasi tagay macluumaad urursan oo ku geedaaman guud ahaanba jawga guriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xaaladda dhabta ah ee ka jirta ayaan idin soo baahin doona waxyaabaha kale hadda wadoontana waxaa ka mid noqonaya dowladda Itoobiya oo si cad u shaacisay go'aankeeda ku aadan gaaritaanka dekada Qasab oo ay sheegtay inay si awoodihii ku gaari doonto waxaan idin soo baahin doonaa macluumaad kooban oo ku saabsan Abiy Ahmed oo wacad ku maray inuu tagi doono dekada magaalada Qasab taasi oo guud ahaanba muddooyinkii ugu dambeeyay Itoobiya ay sheegaysay in markaasi sinaba iyagu aysan ku dhiibin isla markaana ay tahay dekada dowladda Itoobiya macluumaad kooban oo ku saabsan umuurtaasi ayaan idin soo baahin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan ee daawada hadday tahay markaaga kugu horeysa ee soo booqato halkan subscribe noo saar noona like garee muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada anu si aanbaqaado wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoyga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inay buux dhaafiyeen siyaasiyiintii ugu badnaa kuwaasi oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee mucaaradka waxaana ujeedku ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo toddobaadkan gudihiisa imanaya gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana tilmaamaya in wufuud ka kala socota xubnaha mucaaradka ay ku sugan yihiin hoygiisa sidoo kale siyaasiyiin jilib culus oo beesha degta gobolkan u badan ayaa la tilmaamaya in iyaguna ay ku sugan yihiin gudaha hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiyiinta goobta tagta waxaa ka mid ah Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ah xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin kale oo iyaguna Trabeela kuwaasi oo ku qulqulaya hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa la tilmaamayaa inay halkaasi u tagayaan sidii xaaladda loo qiimeyn lahaa isla markaana loo sugi lahaa amniga guud ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya talabadan waxay u muuqanaysaa guud ahaanba tallaabo ay ku cadeynayaan mowqifkooda ku aadan in ay si weyn u taageersan yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo toddobaadkan waxaa tagay hoygiisa siyaasiyiintii ugu badnayd kuwaasi oo sifaaradu Malaysia qaarkood ku tagay kuwaasi oo ka tirsan xukuumadda talada joogta waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay fajax xoogani ku abuurtay dadka ka gadaal markii la sheegay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre inay tageen hoyga uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la tilmaamayaa in soo dhaweyntiisu ay noqon doonto midii ugu sareysay taasi oo loo sameeyo mas'uul Soomaaliyeed waxaana la tilmaamayaa in la xiri doono aaga oo ku yaalo elboorka caasimadda Muqdisho waxaana la tilmaamayaa in la dhigayo ciidamo Trabeela oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka kuwaasi oo guud ahaanba sugi doona amniga dadka halkaasi tagaya iyo sidoo kale madaxweynaha wararku waxa ay tilmaamayaan in qorshahaasi uu isku dibaridayo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo Dheebaa Yuusuf Raage iyo sidoo kale xubno saraakiil waxa sidoo kale ku jira Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir waxaana la tilmaamayaa in dhabaatooda ay ka wada shaqeynayaan soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo uga dhawaaqaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo in markaasi laga shaqeeyo samata bixinta qarankan oo uu sheegay dhowaan inay ku habsadeen musiibooyin siyaasadeed barakicin iyo sidoo kale dhibaatooyin xoogan oo ay wajahayaan dadka waxaana uu sheegay in xilligan ay tahay xilligii laga samata bixin lahaa dhibaatooyinka dowladda talada joogta ay ku hayso madaxweyne Farmaajo waxaa la tilmaamayaa in soo dhaweyntiisu ay ka qayb galayaan saraakiil sarsare oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan kuwaasi oo hadda xukuumadda qaybka qaarkood ayaa la tilmaamayaa in durbaba ay si tageen hoygiisa isla markaana halkaasi ay kula kulmeen dad markaasi ku sugnaa halkaasi duqow oo ah afayeenkii hore
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isaga ku sugan magaalada Muqdisho kaasi oo abaabul xoogan wada waxaana uu la kulmayaa qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo abaabul xoogan ka wada magaalada Muqdisho qorshuhuna waxa uu yahay inuu abaabul ka sameeyo guud ahaanba qorshayaasha siyaasadeed ee isbarkan ee ka jira gudaha dalka iyo in guud ahaanba la sameeyo ololo markaasi lagu muujinayo awoodda xisbiga kani ka horeeyay waa xisbigii kani talada kaga horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee nabad iyo nolol waxaana la tilmaamaya inay uga dhawaaqayaan mawaaqif cad gudaha caasimada Muqdisho waxaana siyaabooyin kala duwan abaabulka wada ninka lagu magacaabo Cabdirashiid Duqow oo isagu afayeenkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaana la tilmaamaya in todobaadyada soo aadan Farmaajo uu imaanaya magaalada Muqdisho haddana diyaar garow iyo buuq xoogan laga dareemayo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya xukuumadda talada joogta ayaa iyada isku dayaysa inay xadida dadka galaya elboorka caasimada Muqdisho iyo soo dhaweyn ballaaran oo loo muujinayo Farmaajo waxayna doonayaan in guud ahaanba tallaabooyinkaasi ay hakiyaan isla markaana ay hor istaagaan markii ugu dambeeyayna siyaabooyin kala duwan ayaa arrintaasi garabyadu ay uga shaqeynayeen markana Itoobiya wararka ka imanaya Itoobiya waxa ay tilmaamayaan in ra'iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya Abiy Ahmed uu si cad uga dhawaaqay mowqifka dowladda Itoobiya ee ku aadan dekada magaalada Qasab waxaana la tilmaamayaa in si cad mowqifkiisa uu cadeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo talaadadii warbaahinta la hadlaya waxa uu yiri ma jiro wax diiwaan rasmi ah oo go'an oo ay qoreen hay'adaha kala duwan ee dowladda kaasi oo cadeynaya in Itoobiya ay weysay marin badeedkeeda waxaana uu tilmaamay xaaladda dalka hadda uu wajahaya inaysan ahayn mid indhaha laga qabsan doono isla markaana ay u raadin doonaan bad ay wax kala soo degaan waana waxa uu sheegay inay tahay tani tallaabo aan la aqbali doonin isagoo sidoo kale ka hadlay inaanan la aqbali doonin guud ahaanba in Itoobiya ay dekad la'aan si ahaato waxaana uu sheegay inaysan jirin dukumeenti cadeynaya in guud ahaanba Itoobiya ay weysay dekedeeda isagoo la hadlayay xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Itoobiya isla markaana kula hadlayay magaalada Addis Ababa 28 bishan oo maalinnimadii shalay ku beegneyd waxa uu ku dooday Abiy Ahmed inaysan jirin hay'ado Itoobiya ka tirsan oo si rasmi ah u ansixiyay inay qaadato Eritrea badda dowladda Itoobiya haddii ay shacabku go'aan qaadan lahaayeen ama baarlamaanku waxay noqon lahayd codeyn rasmi ah isla markaana waxa la heli lahaa dukumeentiyo cadeynaya guud ahaan Itoobiya inay weysay marin badeed waxaa sidoo kale uu hoosta ka xariiqay Abiy Ahmed in xilligan wixii ka dambeeya ay ka howlgali doonaan tallaabo waliba oo ay Itoobiya ku soo ceshanaysa badeeda Itoobiya waxa ay waday muddooyinkii ugu dambeeyay olole ku aadan sidii ay bad ku heli lahayd ka gadaal markii dowladda wadankaasi Eritrea ay la wareegtay badeeda isla markaana guud ahaanba aysan noqon dowladda Itoobiya inay bad hesho sanadii 1993 dagaal xoogan oo dhexmaray Itoobiya iyo sidoo kale dowladda wadankaasi Eritrea ayaa sababay in guud ahaanba la kala baxo isla markaana Itoobiya lagala wareego dekadaha muhiimka ee Masaawa iyo Asab kuwaas oo muhiim u ah guud ahaanba qaranimada dowladda Itoobiya waxayna noqotay dowladda Itoobiya inaysan haysan wax dekada wixii markaas ka dambeeyay xukuumadda Abiy Ahmed Dawaan waxa ay xoojisay dadaalada ay ku doonayaan helitaankooda dekada taasi oo sare u qaaday xiisadda gobolka waxayna noqonaysaa khudbadii maalinnimadii shalay ahayd uu jeediyay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya mid cadeynaysa mawaadiicdiisa ku aadan guud ahaanba rabitaanka dowladda Itoobiya ee marin biyood caalami ah waxaana la tilmaamaya in Itoobiya aysan danaynaynin miiska wada hadalka ay ku xaliso si ay bad u hesho waxaana wararku ay tilmaamayaan in guud ahaanba ay doonayso in si awoodihi ay ku gaarto dekadaha Masaawa iyo Asab ee dhaca gudaha wadankaasi Eritrea wuxuu sheegay in Itoobiya ay dib u dayactir ku sameyn lahayd dekadaha Asab iyo sidoo kale Masaawa balse dowladda Eritrea ay ka biyadiiday ka gadaal markii ay u bandhigeen waxay noqonaysaa tallaabo culus oo garabyadu si weyn markii ugu dambeeyay ay isugu garbanayeen waxaana noqonaysaa tallaabo guud ahaanba fariin u diraysa dowladda wadankaasi Eritrea si ay u xaqiijisato guud ahaanba badeeda isla markaana ay uga ilaaliso dowladda Itoobiya oo muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu sulduubaysa guud ahaanba sidii ay ku heli lahayd mid kamid ah biyaha caalamiga ee dowladda wadankaasi Eritrea guud ahaan intaas ayaan ku soo habarayaa tan iyo kulan dambe nabadeen